markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariya isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf. ciidamada booliiska Soomaaliya dhaqaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan daawooyinka sida qaldan loo adeegsado iyo khamriga oo wadanka si weyn u soo galaya ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyayaashu ay haatan khatar soo kordhayso ku yihiin amniga caasimadda iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyayaasha ay qabatimeen qabatinka maandooriyayaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyay warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista halista soo badanaysa iyo korarka dadka isticmaalaya maandooriyayaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyayaasha si dawladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan ficil celinna looga sameeyo ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhawaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac dilal iyo ficilo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa dadka fal dambiyeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldambiyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan caasimadda gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan baahi ah inay lacag helaan ay ku soo gataan haddii la waayana lacagta ay keento in dadka la dhaco dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in la isdilo taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyay howlgal la yiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaagga la kaabo ee la dabagalo bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyay kooxaha faldambiyeedyadan geysanaya ugu yeerayay ciyaal weero hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahan isku bedeleen qowlaysato dibjiriin ah oo geysanaya dambiye abaabulan gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go'aankaasi ku gaareen wixii ciyaal weeradi waa isbedeleen waxay isku bedeleen daraagiskii gaangis isku bedeleen maxay sameeyeen mashruuca dad ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaateeyaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay mashruucii wuxuu sameeyay marka inay baangada loo soo iibiyo toosas loo soo iibiyo la maalgeliyo la yiraahdo degmihii lacaaw bajaajada maraayo dhan dadka saaran mobilada laga qaado la dejiyo hala garaaco wixii ay soo garaacaan inta laga aruuriyo kaliya loo keeno kaniini iyo xashiish ila qof walba kaniinigiisa waa kana xashiishkiisa waa kana ciyaal weeradi marka waxa isticmaalay gaangisyadii ay isticmaalayeen ciyaal weeradi waxa ka dhaxdashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii ka soo horjeeda oo ayagana la awal xashiiskii la siinay way aqliyeysteen way ka koreen marka anaga aan koox samaysano waxaan anaga aan gadana mobiladeen ayaga ayaa iska soo horjeestay marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan ha soo gelin ana haysta aagan soo gelin filinkaas uu ku soo bilowday ilaa ultim uu dhamaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yiraahdaan mobilada anaga la qaadayna qoriyo la soo raadiyo qoriyo la soo gato ama la keeno hub la keensado hub la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyo wadanka balse si qaldan loo isticmaalo maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin carruur kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaludiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda daawooyinka oo afka qalaad
qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da'dooda ay ka yar tahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda dhalinyarada ku jira da'da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da'da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcoticska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka dooriya ee qofkana maskax ahaan khatar geliya oo maxaa la lahaayay adduunkana looga yaqaano dawooyinka controlling drugs aa lahaa dawooyinka la controlo ama kuwa la mamnuuca la yidhaahdo marka dhalinyarada u badan wiilal iyo gabdho markii la wiilasha aad ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama mailka ah ayaa u badan labka waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jebiya ama heerkaas jooga horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iya xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax ereygaasi aad u isticmaalaan waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo shaqo la-aan burbur bulsho duruufta magaalada ka hareereysan stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah dawooyinka marka noocaana markii la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyahay waxaa waaye qofka wuu la qabatimayaan waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aad maskaxdiisa ay u dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dopamin la yidhaha dopaminka lasoo daaya qaarkood la falgalaa marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active waa qof dareenkiisa fiican yahay waa farxad badan yahay waa baari waa deeqsi waa maxaa la yidhahdaa marka moodkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku khasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jira ka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportiska sida taramadoolka iyo betadine iyo morphine oo laisku yiraahdo opioids maadaama ay banooni ciyaarayaan dagaa ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoon dari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo taramadool habeenimo maalin isticmaala xanuunka laftaas way muujisay isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yahay la arko ala weydiinaya ilaa waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan maxaa u gaara Soomaaliya waxaa u gaara waa in dawooyinkaas la kontrooli waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa loogu iibsado looga heli karo wax Soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo food leh waxaa kaloo Soomaaliya u gaar ah waxaa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuuladii jaamacadihii xarumihii caafimaadka shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye macnaha wax Soomaaliya u gaarka ah waa taas marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan sidee bay ugu suurta gashaa inay helaan waxay ugu suurta gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan
wadamo badan oo adduunka ama wadan kasto haddii loo marka Soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood hadda kaniiniga la dhahayo berigablin oo ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan robinol oo kale sharoobo la yidhaahdo codeine so many narcotic drugs oo tiro badan oo Soomaaliya qofku hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi inuu isbitaalka uu jiifto mooyaane Soomaaliya hadda imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka macnaha farmashiga ka helay kabarka ka helaysaa dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay aadaa loo keenaa loo ganacsadaa ganacsaduna way og yihiin in dhalinyarada addicted ku yihiin marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno laguma baraarugsana dekedii kasoo degaan aeroboortkay kasoo degaan dhulkay ku imaadaan yani markii ugu horreysa wadamada dariska aad looga keeni jira laakiin hadda waxaa arkaysaa oo lifladiskeena ahayna in meelo fogfog laga keeno Qubrus Bangladesh China mararka qaarkood Yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo dad baa u dhintaa tiri intee bay leeyihiin dadka u dhinta anaga intaan ka warqabno oo isbitaalkeena aan ku aragnay 3-4 bilood ugu dambeysay 3 kiis ahayna oo ay mid dumar tahay laba rag yihiin wiilana aad u garanayo welibana bulshada ku aqaanay waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadine doos aad u badan ka isticmaalay yani inbestan aan u aqaan aniga Cabdirasaaq ahaan wiilkan isbitaalkaana loogu keeno markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinkan buu aad u isticmaalay keliyaha fashilmay kreatinintiisa cirka ku dhaganeed 3-4 maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay maxaa yeelay aad u doos badan dawooyin u isticmaalay dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirka ku imaaday dhimashana keentay dhimasho weliba dhalinyarada dadkaas hadda aan kuu sheegayo da'dooda waa 24 sano ka wada yartahay kuli 24 jir ilaa 19 jir ay u dhexeeyaan macnaha waa dhalinyaro waqtigii ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhaxeeyo faldambiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qayb weyn ka tahay ficilada burcadnimada ama criminality-ga waana midaba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaamo oo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka haatan dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha ayaa Dr. Liban iyo mas'uuliyiinta kale caafimaadka ee la hawlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada daraasad oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga warramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay waxaan hadda u jeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba ah dhinaca iskuulada dhinacii professionka shaqaalaha dhinaca booliiska dhinaca militariga amniga guud ahaan meel walbo ay dhalinyaradu qayb walba ay ku jiraan inay saameyn ku leedahay hab dhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya hadda da'da ugu yara isticmaasha waa da'dee hadda ma sheegi karno waa too early marka way ku jirtaa su'aalahaas statistic aan hadda annaga aanu ka bilowna da'da 13 sano ilaa 28 sano intaasaan hadda aanu xooga saarnay inaan ogaano marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyaashan isticmaalay طبعا وسوقا iyo jidadka markaad marayso waa arkaysaa dhalinyaro yar ilmo yar yar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto EVda maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka way jirtaa si caam ah in jidadka qaarkood lagu galayo xataa marka oo isticmaalayaan way jirtaa Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada carruurta iyo dhalinyarada hooyla'aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020 waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 carruur ah haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 carruur ah oo jidadka laga soo xareeyay
kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen. dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan kusoo guriya naqday 2017 ayagaasaan saaxiib la naqda qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho dhinaca number 4 marka meeshoodan ku caawi jiro dhar huudey iyo kabo iyo agabkaasaan u geey jiray iyo raashin markii dambena waxaan ilaahay weydiistay in aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la-aan ba'an ay hayso oo aysan hoy lahayn oo derbigaas taataageen habeen iyo maalin. dhammaantood carruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jiraan? waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabiyaa dhintay qaar hooyadii dhimatay qaar labadaba waa nool yihiin. ilmaha aan haayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha kaamamka marka reerkii kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerka waa kala tageen maamadii 7 caruur haysato ama 8 ama ayadaa dhahayso ama asigaa dhahay ma hooy caseeyaa noqonaya ama baawuran soo dhaqaaya meeshaasaa waxaa jooga rag ku shaqaysta ilmaha raggaasaa marka maandooriyaha barabadana. raggaas maxay yihiin maxay ka shaqeeyaan xagee ka helaan? raggaas waa iyagana rag maxay ku koray meesha maandooriyay ku koreenba waa dad ayagoo yaryar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maandooriyayba gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa barayaan waana ku shaqeynaa ilmuhu waa kala actiifidsan yihiin oo kala karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guryaha koritaankooda tafku waxaa loo diraa inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco qaar way tuugsadaan magaalada haddaa aragta ma aqaano tuugsidaas ay tuugsana hooyadaya sakarada abeeya saas number ay ku siinayaan numberkaas waalidkood ma leh nin meeshaas fadhiyaa iska leh oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan. inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iidaysanayaan kooxo kale waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto. istaraatiijiyadda booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwani hadda abaabulan inaan si toos ah uga hortagno oo operationka samakab u sameynay si looga hortago markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama warhayaan. magaalada muqdisho waxaan ku aragnay gurya xaafadda hooyadii soo degan kaxda ayuu asna guri ka kireystay hodan qolkuu ka kireystay 4 caruura waaye oo asxaaba shiishadooda isaga cabaan hooyaa laba iskuulkii ma aada iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado. waa in waalidiinta iyo macallimiintu la isku xiran number 1 waalidkana suuq marka uu waskiisa ka soo tago macalinku weydiiyo ma soo gaaray macalinka markuu sii deeyay ubadku yiraahdo waalidiintii meedin yimaadaan wadka soo deeyay isku xir noocaas in la sameeyo. number 2 in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimo diinta masaajidda waxaasoo dhan waa qorshaha labaad sababtoo hadda wixii way ka baxeen si toos ah booliisku ugu hortaga markii aan soo gabagabeeyna operationkan oo samakaab wajigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wajiga wacyigelinta waaye wacyigelinta waxaa iska kaashan doonaa maamulka gobolka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macallimiinta si ardayda iyo dhalinyarada looga wado. cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakamaynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan. horta waa arrin mas'uuliyad wadareed horta marka ugu horeyso la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala baarlamaanka hore ma uusan ansixinin waa in baarlamaankan uu ansixiyaa ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhan way ka jirtaa dawooyinka mamnuucda macnaha oo loo regulation leh waa in hay-adaha cadaaladu ka shaqeeyaan waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinka iyo waxyaabaha maanka dooriya dhalinyarada khatarta gelinaya inaan wadanka la geeni karin laga ganacsan karin oo sharci iyo dawladnimo ay rabtaa marka hore. marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska
isxilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashada laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta dawooyinkaas ay yaalaan la kontaroolo isticmaalkooda iyo sidoo kale dhalinyarada victimka u ah ee hadda ku aafoobay maxaa la dhahaa arrintan maandooriyaha xanaaneyn in loo helo waayo waa laakiin marka ugu horeysa waa in wadanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontaroolo ka ganacsigooda iyo keenistoodaba ciyaal weero iyo problemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helaayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helaayo. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale.